marka hore aad baan ugu faraxsanahay aadna aan kaga mahadcelinayaa qabanqaabada kulankan muhiimka ah waqtigiina qaaliga aad usoo hurteen in aan kulanno oo aan kaga warbixiyo xaaladda dalka idinkana nooga warbixisaan xaaladda aad ku sugan tihiin saad ogtihiinba waddankeena dhibaatooyin badan ama caqabado badan uu soo maray laakiin caqabadahaas maalinba waxbaa laga sii gudbaya waxaana sal u ah waxa la yidhahdo debate in wax walba oo taagan ama issue kastoo taagan in laga munaaqashoodo oo laga gudbo marka dib ugu noqono shirkii carta ayaa tusaale u ah oo markii uu soo bilowday kac badan oo jiray kadib natiija ka soo baxday wixii ku xigayna maalin walba meeshii la taagnaa way kasii ficnaanaysa marka in waddanka uu hore usii dhaqaaqo amaba waxyaabo badan ay qabsoomaan waxaa sal u ah marka hore munaaqashadaas iyo debatekaas inuu socdo dadka iswareystaan sideen u noolaanaa habkan iyo habkan kee wanaagsan oo aan ka dhiganaa shuruucdii aan ku dhaqmi lahayn ugu dambeyntiin waa sal dhigan doontaa wadamada maanta aan leenahay way hormareen sida maraykanka oo kale wadamada reer galbeedka ah meelay kasoo bilaabeen dadka maanta jooga leeyahay wadamadooda waaweyn yihiin oo go'aamo adag ay soo saaran oo caalamka ay u taliyaan maalin qura intay soo kaceen wixii umaysan hagaagin annaga fursadan haysta caqabadaha aan soo marnay waxay noqdeen tusaale waxa u ah hal abuurka iyo sida dhabar adeega aad waxyaabo badan oo aan dad macnaha xaaladaha kale gale aysan fulin karin inaan maanta qaban karno Soomaaliya maanta meelaha inta badan ay ku tiirsan tahay ama ay kusoo gaartay ilaa xataa in ay nidaam dawli samayso waxaa qayb ka ah dadka dibadda ku nool ee diasporaha sababtaa dadka nolol ay u baahan yihiin noloshaasna waxaa qayb inta badan ka qaadanaya waa dadkayna dibadaha ku nool oo adeegyada ijtimaaciga ah ha noqdaan arrimaha dugsiyada caafimaadka dhaqaalaha qayb weyn ka qaatay marka taas waxay ka dhigan tahay in contributionkiina makaalintiina weli Soomaaliya looga baahan yahay fikirkiina loo baahan yahay energygiina loo baahan yahay aan noqonay marka ummad macnaha sugaysa in dhammaanteeda mid walba ama shakhsi walba oo ka mid ah uu qayb ka noqdo dib u dhiskaasi Soomaaliya ama Soomaaliya aan rabno inaan hiigsano markaan fiirino xaaladda maanta taagan waan ognahay xaaladaha waddankeena ka jira sida siyaasadda oo kale oo ay ka jiraan nidaamkan loo degsan oo 4 sano kadib doorasho la galo waa ka mid waxyaabaha debateka hadda socda oo ku saabsan xaggeen uga gudbina marxaladda hadda taagannahay taasna ugu dambeyntii waxay keeni doontaa in iyadoo wada ogol leeyahay la gaaro xal amaba la helo meesha uga gudbi lahayn meeshaan taaganahay ujeedka waxaan rabnaa in ugu dambeyntii la gaaro meel ay dadka Soomaaliyeed aysan ku hurdin walwal iyo walbahaar ku saabsan maxaa inoo xigi doona oo aan yeelano wax aan wada leenahay oo qof walba oo Soomaali uu qayb ka yahay oo qof walbana uu dareemayo in wakiil uu uga yahay shacabkiisa amaba shacabka oo dhan ay dareemayaan inay qayb ka yihiin waxa socda marka waxa socda oo dhan waa dadaalo ku saabsan Soomaaliya mustaqbalkeeda sidee u xasili lahaa sida sheegana waddan maalin ku hormaray ma jiro maalin walba meel baa laga bilaabaa meesha aan taagneen 2000 markii processkii carta uu socday meesha maanta taagana way kala duwan yihiin aad runtii u kala duwan yihiin marka aad ku jirto systemka caalamkana micnaheedu maaha inaad keli tahay ama isolated noqon kartid waxaa jiri kara wadamo daris ah waxaa jiri kara caalamka intiisa kale oo u baahan in iyagana marmar qaarkood u muuqato in waxa dano ay leeyihiin amaba ay markaas u baahan yihiin inay Soomaaliya la falgalaan ama ay u arkaan Soomaaliyada soo baxay sida u eg tahay waxyaabo noocaas marka intaas oo dhan waa culeysna wada saaran oo u baahan in midnimo looga baxo way dhici kartaa dadka gudihiisa ama dadka bulshada dhexdeeda in ay waxyaabo yar isku qabsadaan oo sunnada nolosha qayb ka ah laakiin waxaa asal ah midnimada dalka qaranimada dalka iyo in la ilaaliyo mansabkeena Soomaalinimo iyo sovereignty aan leenahay iyo meeshaan rabno inaan gaarno aan ku gaarno Soomaalinimo anagoo wada jirna khilaafaadkeena yarar aan dhinac iska dhigno aan fiirino mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sawirka guud ayna sugayo ah in Soomaaliya qayb ka noqoto wadamada caalamka la tartami kara oo kale anagoo ku jirna xaaladahan adag ayaa haddana waxaa muuqda in aan samaynayno horumar dhinac kasta ah oo hadhow keeni karta in ugu dambeyntii talooyinkeena badan oo dadkeena gudaha joogay kuwa dibadda isku darsada ay Soomaaliya noqoto waddan tusaale u ah caalamka intiisa kale oo haddii ay jiraan caqabado hore u soo maray anagoo casharo badan ka haysana aysan dadka ku dhiiranaan doonin inay dhahaan hana loo celiyo meeshaan ka nimid qaldaneed maadaama la soo wada mar cid walbana ay soo aragtay natiijadeena ay soo tijaabisay waxyaabaha hadda Soomaaliya inta badan hadda ay qorayeen caalamka waxaa ka mid ah ayaan dhoweed dalxiiska Soomaaliya oo kale way leeyihiin dalxiiska Soomaaliya wuxuu leeyahay diilo ku saabsan in Soomaaliya dhinaca dalxiiska ay horumar samayn karto waa run dad badan waxay inta badan maqlaan warar ku saabsan Soomaaliya oo dagaal ka jira Soomaaliya dhibaato ka taagan tahay laakiin barnaamijyada aan wadno ayaa ka mid ah in aan dhiirigelino maalgashiga kala duwan oo weliba dalxiiska marka laga hadlayo oo kale dalxiiska sidiisaba wuxuu ka dhigan yahay image-ka dalka
oo ah meel stability uu ka jiro ayaa dalxiis uu ka jiri karaa. marka waa bilow, ma dhahayno waxaan u dhiganaa sida wadamada dariska oo kale u horumarin dhinaca dalxiiskooda, laakiin qayb ahaan dadkii shacabka ahaa ayaa intooda badan kaalintoodii qaatay oo barnaamijkan iyadoo oo privatization ah u fuliyey, dowladdan ay ku taageerayso keliya regulationkeedna u samayso. taasi waa qayb. waxaa socday sida la socotaan barnaamij ku saabsan shidaal qodista oo seismic survey uu ka socday gobolada dhexe, waa lasoo gabagabeeyey, natiijada dhowaan lasoo bandhigi doonaa. dabcan natiijada waa lasii ogyahay, waxay tilmaamaysaa in sanadka dambe qodistii la bilaabi doono. marka waxyaabaha aan sheegi karno, aan dhihi karno dhabar adeega iyo hal abuurka Soomaalida ay leeyihiin oo ah innagoo ku jirna marxalad saan u adag ayaa haddana waxaan noloshii ka dhignay mid si caadi u socota tartiib tartiib ilaa ugu dambeyntii aan gaari doono meel aan isleenahay xaggee waxaan ka imaadan, laakiin waxay ku imaanayaan dhabar adeega aan hadda muujinayn inaan sii wadno, iskaashiga aan wadno inaan sii wadno, iyo haddii ay jiraan differences amaba waxyaabo yar yar lagu kala duwan yahay inta dhinac la iska dhigo, waxa ugu weyn ee mas-uuliyaddana saaran aan xoogga saarno. marka waxyaabahaas ayaa inoo socda Soomaaliya. waxaan rajaynayaa in intaas ka badan aan gaari doono. mar walbana dhankiina waxaan filayaa in fikradihiina iyo wixii aad qabtaan ku saabsan sidee Soomaaliya uga bixi kartaa marxaladaha kala duwan ay ku jirto, ha noqoto xagga siyaasadda, ha noqoto xagga dhaqaalaha, xagga ijtimaaciga. fikirkiina waa muhiim, kaalintiina waa muhiim, contributionka aad Soomaaliya ka geysanaysaan heerka lagu gaaray weli waa muhiim. waddankana hadday timaad dhinaca maalgashiga, gobolo badan oo Soomaaliya ka tirsan hadda maalgashi badan ka socda, waxayna u badan yihiin maalgashi ay samaynayaan dadka diaspora ka imaanaya ama dadka jaalidaha dibadda ku nool. intaasna waxay tahay yididiilo ah in ay meesha ka jirto xogaa yar oo horumar ah, horumarkaasna u baahan yahay in lasii boost gareeyo ama hore loo sii riixo si meesha sawirka ka soo baxayo uu noqdo sawir ka duwan kan maanta aan ku sugannahay. dagaalka khawaariijta waa qayb ka mid ah waxyaabaha ama dadaalada ay Soomaaliya ka midaysan tahay. gobolada koonfureed way ka socdaan, dhinaca Puntland waxaa ka socda dagaal khawaariijta laga soo horjeedo ISIS ah, dhinaca koonfur waxaa ka socda waa shabaabkii. dagaaladaas horumar ay samaynayaan. sidaan hore u sheegnayna ma ahan maalin ku dhammayn karno, laakiin waa hawl socota oo mar walba muujinaysa natiijada la gaaray inay aad u fiican tahay. oo 3 bilood ugu dambeeyay oo kale gobolada Shabeellaha Dhexe ama Hirshabeelle, dhinaca kale Shabeellaha Hoose, koonfur galbeed ka mid ah, dhinaca Jubbooyinka waxaa jira progress weyn laga gaaray ama horumar dhinaca dagaalkaas ah. ugu dambeyntiina waxay Soomaali maalin kusoo toosi doontaa iyadoo la leeyahay hawshii way soo dhammaatay hadduu alla yiraahdo. aad iyo aad u mahadsantihiin, soo dhaweyntiina waan kaga mahadcelinayaa.